بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقالكين ما تحن كهرجت أنا طبعا ساتيت لكم معيوان مقالكنا كساركتين إن قابك لو قريو فايلشة إن هديهن صور يهديهن فيديو أديكون استعماله إنه أبليكيشنه إن طبعا مقالكنا حقاسوي أنتريور سنس أما سيدين لوجن هاي iOS أما آيفون إن لما بدلوا حبلة ما بدلوا قيبت فايل مانجر كوار restricted ما مانج كرين كريسد مركا waxaan isticmaali doonaa oo muuqaalka khaas u yahay Android hadda qof iPhone isticmaalaya dabcan muuqaalkan kuma khasaayo hadda waxaan ognahay sawirada iyo fiidiyoyadu inay yihiin waxyaalaha ugu muhiimsan ama personal data waxyaalaha aadka ugu muhiimsan marka laga dhufeysado oo badanaa xogteena u kaydsan mobilka iyo mobilka qiimihiisa waxay noo qaalisan badanaa oo value agteena kala xogta hadaba muuqaalka waxaan ku arki doonaa saata korna intaan qaabkan u qarin doono inagoo wax isticmaalayeen application wax isticmaalayeen download iyo wax la mid ah doona xitaa ifan aan internet u baahnayn hadaba saynu aragno dabaan kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta ugu horreyn saada halkan ragta waxaan isticmaalayaa telefoonkan marka haddii aan imika halkan oo kala tago file managerka halkan waxaa yaalo hooseeya saada halkan ragtaan sawiro iyo muuqaalo aan idhaahdo sawiro iyo application hadda halkan waxaa yaala sawir ay ku qoran tahay screenshot iyo halkan oo kale oo application la yidhaahdo Queen shortcut maker oo kale yaalo waxaan doonayaa inaan application-kan qariyo ama aan qariyo sawirkan sida ugu fudud aan samayn karo waxa weeye application-ka ayaan dul tagayaa kadib waxaan odhanayaa halkan aan ku dhufanayaa more marka morekan dabcan Android-du way feershana badan yihiin waxa laga yaabaa mid kamid ah inuu halkaas oo kale mobilada qaar soo dhigo qaar xaggan hoose soo dhigo you name it marka dabcan dee telefoonkaaga un baad yar ku samaynaysaa play around kadib more baan dooranayaa rename baan tagayaa rename markaan tago hadda inta qaybta halkan xigta qaybta inta uu highlight gareeyay midabkan blue ah uu mobil ku sameeyay waa magaca file-ka halkan hoosena waxaynu aragnaa .jpeg ama .jpg oo ah nooca file-ka ama wuxuu yahay application marka haddii aan dhankan saaragtaan haddaad intan aan bedelo magaca waxaan bedelayaa magaca file-ka laakiin haddaad imika halkan ku dhufto .jpeg aan jpg-da baabiyo dadnaan u bixiyo tusaalo kale xyz waana idhaahdo change halkan maxaa aragtaan file-kii aynu isticmaalaynay mee weerasi dabcan waxaa aragtaan waa disappear waa ma muuqanayo halkan imika sawir inuu yahay waana kan hadda haddii aan dul tago haddana right click idhaahdo rename magacana aan ku qoro kalo virus hadda completely file-kaasi inuu sawir yahay qof filan karaa maba jiro dabcan file-kan imika haddaan ku dhufto muxuu igu leeyahay play store-ka ka baadh buu leeyahay file kuu fura marka haddaan ku noqdo okay haddaan ku noqdo ayda cancel hada file-kani ma garanayo mobilku si la mid ah hadii mobilkan aad u suuqat xaadirkan gacanta ku hayso file-kan ay ku qoran tahay virus tay ma suuraysan kartid inuu yahay sawir hadaba qaabka fudud aad u qarinaysaa hadaba sawir haday tahay application iyo haduu yahay muuqaalba qaabka fudud ayaad yani u qarinaysaa mana jiro qof garan karaya hadda dadka application-kan isagana tusaale soo qaato markaas si aan waqtigu nagu dheeraan aan rename idhaahdo magaca kale aan ku qoro malware magacaadii ku qoraya waxaan ku qorayaa test baan ku qorayaa halkan apk-gana waxaan ku qorayaa xyz buu kii hore ahaa kana abc baan ka dhiganayaa change hadda application-ka isna sidoo test.abc haddaan isna ku dhufto wax akhri karaya ma jiro sidaas ayuu file kasta wadadeeda ku qarsoomaya magaca iyo extension-ka hadaad bedesho file-kaas wuxuu noqonayaa file useless hadaba qaabkaad file-shaadii aan hayr u oranaysaa ama aad u soo celinaysaa si la mid ah process-kan marnun baad yani dib u qaadaysaa adoo yani file-ka dib test u kala garaynaya more oranaya rename dooranaya kadib magaciisa oo kale app baan ku qoraya imika oo kale kadib halkana apk baan ku qoraya abc-da change seen aragno app-ka wuxuu ku soo noqday application-kiisii hore saad aragtaan haddaan ku dhufto install buu igu leeyahay haddaan sawirka dib ugu noqdo virus aan isagana dul tago halkan hoose rename doorto aan ka dhigo my big sawirkaygii halkan xyz-kana aan ka dhigo jpg change idhaahdo isagana sawirkaygu wuu soo noqday marka that's all waa intaa
qaabka fudud ayaad adiguna wax application isticmaalayn aad u qarinaysaa sawir iyo muuqaal ka yaaduntaba طبعا marka muuqaalka intan aynu ku koobaynaa waxaan rajeynayaa inaad muuqaalka wax ka faa'iiday dabcan dad wax ka faa'iiday muuqaalka like noo saar haddii aanad wax ka faa'iiday waqtina u kaalmiyay dislike gare haddii tahay markii ku wareysay channelkaad soo booqato una aragto mustaqbalkan dhow mid aad wax ka faa'iidaysana subscribe noo saar inta muuqaalkan ku xigku mid doono annaga iyo idinka waxaan idin rajeynayaa khayraad far badan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته